saldhig cusub oo ay yeelan doonaan ciidamada booliska ayaa laga furay deegaanada bariga magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Saldhigan cusub ayaa maareyn doono ilaa iyo 7 waaxood oo deegaanada bariga magaalada Oslo ka mid ah, kuwa oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo kun oo dad ah. Taliyaha cusub ee saldhigan booliska cusub Johan Reger Lunde ayaa ku waramaya in saldhigan cusub oo ku qalabeysan qalabka ugu casrisan ee dhanka tiknoolajiyadda uu wax weyn ka qaban doono amniga iyo xasiloonida deegaanadan 7 ah ee ku xiran deegaanka laga furay. Waxa uuna intaa ku daray in ay xiri doonaan 2 saldhig ee ku yaala xaafadaha Stavanger iyo sidoo kale Mangelrud, kuwa oo uu sheegay in baahidoodii ay soo afjarantay oo uu saldhigan cusub dabooli doono xaafadahan 7 ah ee magaalada Oslo barigeeda ku yaalo. Sidoo kalena waxa uu ku waramayaa in shaqaale cusub iyo qalab casri ah oo u dhameystiran saldhigan, kuwa oo wax weyn ka bedeli doono xaaladaha amni iyo xasilooni ee deegaanada 7 ah ee bariga magaalada Oslo ku yaalo. halka ay wararkeedii kaga imaanayeen waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.